بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضا وضيال ميل كستو جوجتان waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay doorashada maayarada magaalooyinka iyo shirgudoonka golaha wakiilada gola ay ku midaysan yihiin baarlamaanada dalalka Soomaaliland iyo Kenya oo lagaga dhawaaqay magaalada Nairobi ee caasimadda wadankaasi Kenya boqortooyada Sacuudiguna waxay war cusub ka soo saartay xajka sanadkani daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena oo fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garooba qadaradeyga bulshada kusoo dhawaada Border Mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Border Mills ay wax u wado sidoo kale sharikada Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda sharikadan ay soo saartay ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda sharikadu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka Border Millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills hiigsi sare iyo hadaf lagu midoobay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu qorsheynayo in uu si xanaf la'aan ah ay doorashada maayarada iyo shirgudoonka wakiiladu ku soo dhamaato madaxweynaha oo kulan mahadcelin ah la qaatay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay in ay doorashada shirgudoonka wakiilada iyo maayarada magaalooyinku ay si fiican u dhici doonaan shacabku waxaan u bushaaranayaa sidaan ku talagalay haddii la yiraahdo doorashooyinka haray ee maayarada iyo golaasha deegaanada maayarada ku xigeenadooda la dooran doono iyo xubnaha loo dooran doono chairmanka baarlamaanka ilaahay idankii inay ku dhamaan doonaan nabadeeda iyo sharafta iyo midnimada iyo walaal adigu qaaday iyo walaal adigu qaado taasaan ku shaqeynayaa inaan helo iyadana oo arintaasi xisbiyadana taasaan soo jeedinayaa waanay u dhowdahay ilaa haddana wax khilaafaad oo xisbi iska hor imanayaan ma inaan arag iyadana waa laga heshiin doonaa si qabow oo ay xisbiyadu u abuurin tartan cunf ka hor yimaada ayaan u dhameyn doonaa qaar ka mid ah musharaxiinta ku soo baxay doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka ayaa loolan ugu jira doorashooyinka shirgudoonka wakiilada iyo maayarada magaalooyinka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa ballan qaaday inay xukuumadooda ka dalban doonaan dadejinta fulinta heshiisyadii dhexmaray Soomaaliland iyo Kenya sida lagaga dhawaaqay munaasabad ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliland ee Kenya taasoo lagu abuurayay golo ka kooban baarlamaanada labada wadan kaasoo ka qayb qaadanaya horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda dhaqan dhaqaale iyo ganacsi golaha baarlamaanada Kenya iyo Soomaaliland ayaa hormood u noqon doona diblomaasiyadda baarlamaaneed oo taageerta dadaalada labada dawladood iyo sidii meesha looga saari lahaa wixii caqabada ah ee hor yaalla wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah ee labada wadan kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf iyo xildhibaan Soofiya Cabdinuur oo laga soo doortay degmo doorashada Ijaara ee degmada Gaarisa ee wadanka Kenya ahna gudoomiyaha golaha cusub ayaa maalinimadii shalay magaalada Nairobi si wada jir ah uga dhawaaqay dhismaha golaha iskaashiga baarlamaanada Soomaaliland iyo Kenya xildhibaan Soofiya oo munaasabada ka hadashay ayaa Soomaaliland ku bogaadisay doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee 31 May 2021 ka qabsoomay dalka waxaana casuumaad u fidisay xildhibaanada cusub ee loo doortay golaha wakiilada Soomaaliland waxay caalamka u muujisay inay runtii tahay dal dimuqraadi ah iyadoo qabatay doorashooyin hufan 31 May ayay tiri Soofiya Nuur qorshaha abuuritaanka golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo Kenya ayaa daba socda kulan bishii Disembar ee 2020 magaalada Nairobi ku dhexmaray madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliland waxaana mudanayaasha baarlamaanka Kenya ku ballan qaadeen inay dawladooda ku riixayaan
shaqeeyaan dedejinta iyo fulinta heshiisyadii ku xusnaa warmurtiyeedka ay kala saxdeen labada madaxweyne. Simaha wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf oo kulanka ka hadlay ayaa ka mahad celiyay taageerada ay mudanayaasha baarlamaanka Kenya siiyeen Somaliland, waxaanu intaasi ku daray in golaha cusub xoojin doono xidhiidhka ka dhexeeya sharci dejiyayaasha labada wadan. Munaasabadda lagaga dhawaaqayay golaha xildhibaanada Somaliland iyo Kenya oo lagu talagalay in lagu xoojiyo xidhiidhka saaxiibtinimo ee labada wadan ayaa ah wado lagu dardargelinayo laguna dhiirigelinayo isdhexgalka gobolka iyadoo loo marayo iskaashi dhaqaale, ganacsi iyo nabadgelyo. ayay ka soo qayb galeen xildhibaano tiro badan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya, barasaabo gobolada wadanka Kenya qaarkood iyo marti sharaf kale iyo gabadh uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo lagu magacaabo Rosemary Odinga. waxaa kaloo munaasabadan ka qayb galay barasaabka Gaarisa Cali Krone. gabadhii markii uu kulanku soo idlaaday waxa warfidiyeenka uga warbixiyay wakiilka Somaliland u fadhiya wadanka Kenya Danjire Baasha Cawil iyo sidoo kale kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ahna wasiir ku-xigeenka Liibaan Yuusuf Cismaan. Nairobi in lagu dahfuray xaflad lagu soo bandhigayay ama lagu soo bandhigayay xildhibaanada Kenyan Parliamentka iyo aqalka sare iyagu markaa caucus ama samaystay urur ay ugu yeereen ururka xildhibaanada Kenya iyo Somaliland oo muhiimadiisu noqon doonto runtii in ay ka shaqeeyaan ama u hawlgalaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen una horumarin lahaayeen isla markaana u xoojin lahaayeen xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Somaliland. dhanka kalena ay u soo bandhigi lahaayeen qadiyadda reer Somaliland ee ah itiraafka buuxda inay hesho. xafladda runtii waxaa ka qayb galay oo dalkii inooga yimid kusimaha wasiirka khaarijiga Liibaan Yuusuf iyo مسؤولين فربضان وحلدبانا أو كسعودي برلمان كينيا يعقل كسرة برسابي قبل دور قبل أو سومارد قوة مشاعة برساب كحجينه مسؤول ملح كلا دولة كينيا كسعودي جديد إن الرتي وحياة هايد ده فرقة يقولون الكينيا برلمان كل أي صوب بندقيين ولا جود غيب جري عادي عاد بيسي قرح بدن نقول عادي مسؤولين تلك كهذين دمانت أهم بليين بشدة في Somaliland مدحونا جمهورية Somaliland مدحونا كحجينك لبعض أقل كبرلمان كم وقت يسود ماضي يكعصب أي مكسوق جرية وحد رنتي حسد مديت مسؤولين تاسي أي هوست كودا حريقين هرمرك برلانة دور الشدي ونعكسينيت قرح ضبطنيت سوى ونعكسين نقول عضي دور الشدة سوى هاي مد عالم كهمبلية ما أنت نحل لبعض دي مش كودا هذا دمان تود أي هوست كحريقين إن هاي مد ما أنت أهر سودي كرتا اعتراف كسوماليلاند يو وحي أي صدق كاس إنه سوى هالجنسي وايو dadka halka ka hadlay waxa kamid ah dad mas'uuliyiin ah oo ka qayb galay oo observers ka ahaa oo ka warramay sida doorashadu dhacday waxayna guddigood sheegeen oo ay hoosta ka xariiqeen inay ka horumarsanayd oo ka qiimo badnayd doorasho badan oo wadamada hore u maray ama isku sheegay dimuqraadiyadda inay hore u jireen ay qabsan jireen Somaliland ahay doorasho waxa ku baxay dhaqaalaheeda iyo dawladda Somaliland qabsatay awoodeeda marka la eego iyo wax u soo baxay ahayd wax aad u weyn dawladuna taayna hambaliyayso ictiraafto. waxaanu xaflad runtii si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo abaabuleen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Kenya oo ay ka soo qayb galeen madaxda dawladda Kenya haday yihiin kuwa governorska county-yada kala duwan ee Kenya xildhibaanadii hore Kenya wasiiro iyo dad kale oo sharaf leh oo ka tirsan dawladda Kenya. xafladan iyo event-kan ujeedadeedu waxay ahayd in Somaliland iyo Kenya xiriirkooda la sii xoojiyo oo xildhibaanada maanta kontonka ka badan ee ka soo qayb galay xafladda ama forumka isku xidhi doona Somaliland iyo Kenya ay hormood u noqdaan sidii loo wanaajin lahaa ee halka maanta uu taagan yahay xiriirka Kenya kor looga sii qaadi lahaa. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Somaliland ee Kenya oo hawl weyn ka geystay abaabulka iyo isku dubaridka forumka ama caucuska Somaliland baarlamaankeeda iyo baarlamaanka Kenya ay iskugu xidhmayaan si ay contribution iyo muxuu ahaayay ay waxtar ugu yeeshaan xiriirka labada dal dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda labadaba waa qayb ka mid ah diblomaasiyadda casriga ah in baarlamaanadu dalalka saaxiibada ay xiriir sameeyaan si xiriirka guud ee labada dal u wanaagsanaado labada dal executive-kooda ama laamahooda fulinta ay uga caawiyaan
in xiriirka labada dal runtii meesha uu maanta taagan yahay kor looga qaadi lahaa xaflad runtii si aad loo soo agaasimay bay ahayd xaflad lagaga hadlayay inta badan guulaha ay Soomaaliland gaadhay ee dimuqraadiyadu ka mid tahay ee dhaqaalaha uu ka mid yahay ee nabadgelyadu ka mid tahay ayay ahayd dowladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta shaacisay in xajka sanadkan loo ogolaan doono kaliya dadka muwaadiniinta ah ee ku nool gudaha waddanka Sacuudiga. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay tiro ahaan in 60,000 oo xujaaj ah loo ogolaan doono inay sanadkan gutaan waajibaadka xajka, taasoo cadeynaysa inaysan jirin sanadkan xujay kale oo ka imanaysa caalamka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka xajka. wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay in sababta loogu xadiday 60,000 oo muwaadin oo ah Sacuudiyaan ama dadka haysta iqaamada dalkaasi inay tahay halista weli uu dunida ku hayo cudurka safarka ah ee COVID-19. waxaa sidoo kale bayaanka wasaaradda lagu sheegay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhaxayn doonto 18 jir ilaa 65 sano jir, isla markaana ay waajib ku tahay inay si buuxda u qaataan tallaalka looga hortago cudurka halista badan ee COVID-19. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareerintan warkan warka xiga kulmi doona waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.